مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaal ilaahay baan mahadle subxaanahu watacaala, inagoo ku jirna bishii barakaysnayd ee shahru ramadaana, ee dadku masaajidda ilaahay ay buuxinayeen, ay camirayeen, ayaan ku jirnaa. ilaahay baa mahad ku leh. marka ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo arrintaa tilmaamaya makaanada ay leeyihiin masaajiddu iyo xurmada ay leeyihiin. ilaahay wuxuu yidhi allahu nuuru samaawaati waalard mathalu nuurihi kamishkaatin fiiha misbaax المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. aayadda aada u dheer waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu dhulka ku leeyahay guryo oo waxa weeyaan nuura guryaha. markaa guryahaas dadka nuurkaa leh halkay nuurka ha ka helaan weeyaan, halkay nuurka ha ka helaan. aayadda dambe ayaa tilmaantay keli hata kuma file. culimmadu yidhaahdeen qofku intuu aayadda ku celceliyo oo yidhaahdo ilaahay waa nuuru samaawaati waalard, ilaahay waxbuu uga jeedahay. waxaa laleeyahay si ilaahay cirka iyo dhulka uu nuur uga dhigay oo waxyiga iyo shamsiga iyo qoraxda ugu nuuray, in qofka mu'minkan qalbigiisa uu nuuro. halkuu ka nuuri oo ka shidaal qaadanayaa. aayadda laba ayaa sheegtay fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh. ilaahay wuxuu leeyahay nuurkaa waxaa laga helaa guryo dhexdood. guryaha ilaahay waa almasaajid, taasoo ilaahay fasaxay u ogolaaday in kor loo qaado oo la camiro. hadday tahay cimaaradaasi iyo wanaajintaasi to in la dhiso oo la taaga ah, ama cibaado iyo cilmiba in lagu camiro iyo khayr oo dhan, labadaba way noqonaysaa. halkaasaa laga helaa. goormay ku cibaadaystaan? habeen iyo dharaarba, gelin hore iyo gelin dambe ah. ilaahay markaa wuxuu leeyahay salaadana way ku ogaan. waa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi. waa rag buu leeyahay dadkaasi hayna ka mashquulinayn dikriga ilaahay, baaci mashtur iyo waxa weeyaan ganacsi iyo wax iibsi kama mashquulinayso. marka rijaal haddaad maqasho qur-aanka oo meel cibaadana laga hadlaayo, rag kaliya looma jeedo, lab looma jeedo. waa sifa weeyaan. dumar bay noqon karaan, rag bay noqon karaan. waa dad sifo yeesho rujuula iyo raganimo la macnaha weeyaan. halkaasuu ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala. walaalayaal waxaan leenahay dadka muuminiintii masaajidda ilaahay ama guryaha ilaahay ayay siyaartaan maalin kasta. 5 jeer bay siyaartaan. waayo cidda la siyaaranay waa ilaahay gurigiisii, allah gurigiisii weeyaan. markaa nabiguna wuxuu noo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xaqa uu leeyahay qofka qof siyaaranaya inaad ku leedahay inuu ku karaameeyo kii aad siyaaratay. ilaahay gurigiisa markaad siyaaratay rabbi baad marti u tahay, rabbi baad erge u tahay, rabbi baad u tahay mataqaanaaye mid horjoogaa tahay. sidaa daraaddeed waxaa ku sugnaaday xadiiska salmaan farisi uu soo wariyey radi allahu canhu, nebigu inuu calayhi salaatu wasalaam man tawada'a fii beytihi fa axsana alwuduu, qofka gurigiisa ku weysaysta ee weysada wanaajiya, uma ata almasjid, masaajidka haddana tega, fa huwa zaa'irun lilaah, ilaahay buu kaa siyaartay. wa xaqun cala almusiir an yukarima zaa'irahu, waxaana xaqu oo waajib ku ah kii la siyaartay ee la buuqday in uu karaameeyo kii buuqday. ilaahay baan siyaaranaynaa. wahuwa akramu lakramiin, ilaahay weeyaan. axkamu lxaakimiin weeyaan. khayru lfaatixiin, ilaahay weeyaan. gurigeeda waa marka waa bishaaro qofka muuminka lagu leeyahay adoo wanaagsan oo weyse qaba oo nuuraya oo qurux badan beedka ilaahay maxaa yeelay rabbi baad soo siyaaratee.
ibnu cabaas oo ahaa qur-aanka ninkii fahmay nebigu u duceeyey wuxuu leeyahay radia allahu canhuma ina almasaajida buyuutullahi buu yihi masaajidu waa guryihii ilaahay fi lardi dhulka tudiicu liahliha waxay u iftiimisaa oo nuurka ka hela ehelkeyga ahlu salaad weeyaan kamaa tudiicu nujuumu fi samaai liahliha sida samada xidigaha samooyinkuba ehelkooga iyo makhluuqaadka dhulka ay ugu iftiimiyaan ayay kuwana ku iftiinsadaan iimaanka iyo khayrka macnaha weeyaan marka xadiiskaa hore imaam waxa soo wariyey atabaraani baa kusoo wariyey kitaabkiisa sidoo kale imaam albanina inuu xasan yaho wanaagsan yahay ayuu ku tilmaamay idan ilaahay baan martuunahay waa inaan iswanaajino oo ilaahay siyaarano masaajidiisa midda kale masaajidka ilaahay oo la siyaarto lagu noqnoqday oo qalbiga taasay qalbi ka timaado in jir kaliya ka iman sharaf weyn baa ku jirta bishaaro weyn baa ku jirta qiyaamaha lagu badbaadaa xadiiskii saxiix ee bukhaari muslim soo wariyeen aan ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sab'atun yudilluhum allahu fi dhillih yawma laa dhilla illa dhilluh toddoba ilaahay uu hareeyaa maalinka har jirin ee qiyaamaha harka ilaahay mooyaane maxaa ka mid ahaa warajulu qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin qalbigiisa ku xiran yahay masaajidda lama oran yactaadu waliba xadiiskaa kalena uu jiro inkastoo ay far ku gudan tahay qalbuhu baa leeyihi isagoo shaqadii jooga ayuu masjidka joogaa isagoo macallin oo waxbarashadii ku jiray ayuu masjidka joogaa isagoo xafiiskii iyo jooga dhakhtarkii ka shaqaynaya ayuu shaqadii masaajidka ku xiran yahay isagoo beertiisi iyo baabuurtiisi iyo warshadihii kala wada ayuu qalbigiisu masaajidka ku xiran yahay halkaa weeyaan bashaaradu taa weeyaan xadiidka markuu sharxayna imaam nawowi wuxuu leeyahay waa ciyaashada badan ama noqodka badan iyo mulaasamada jamaacada sidoo kulba u gaari lahaa oo xagga hore saf hore kaga geli lahaa ilaa la moodaa laleeyahay qofka muuminka ee masaajidka ku xiran tiir miskiidka kamid ah waayo tiirku markas soo gashaba halkiin buu yahay bitoogu markas soo gashaba halkiin buu yahay sidaa daraadeed taabiciintii baa nin baa loo jiray alxasan asafiy ninkii xasan safi safka ahaa saf baa laga soo qaaday maadaama hadiga goorayo halkaa uu taagan yahay waxaa kaloo tilmaamaysaa uu tilmaamaya culamada qaarkood sida ibnu xajar xadiiska markuu macnaynayo tashbiih baa ku jiro beri waxbaa wax lagu shabahayaa waxaa lagu shabahayaa masaajidda waxyeelada ku dhajisan ee lagu rakabay kama fuqaan sida maraaxadaha matalan sida qaboojiyaasha iyo wixii kale ee masaajidka lagu dhisay oo qalab oo dhan daaqadaha muraayadaha waxaas oo dhan way ku dhegan yihiin kama dhacaan si dhayal kuma dhacaan dad baa ka shaqeeyo hadiga goor alama taqaanaa ku faajafaajooda shaqadooda qofka muuminkana qalbigiisa iyo iimaankiisu ka shaqaynaya siduu u noqon lahaa qof 24 saacadoodba masaajidka jooga waxaa kaga baxaya saxaabadu taabay xaqiijiyeenoo saxaabiga la yidhaahdo cali bin abi aalib masaajidka nebiga siduu u jeclaa isagoo soo hijrooday oo beer ku taala madiine ka shaqeynayo nin yahuudiya u shaqeynaya ayuu masaajidka ka adimay bilaal markaasuu dhaqaajiyey oo sii daayey baaldigii uu soo daylusayay buu sii daaya allahu akbar buu maqlay halkii allahu akbar laga yidhi waa masaajidkii ayaa allahu akbar yidhi waa bilaal maxaa lagu yeedhayaa waa cibaadadii wuu sii daaya markaa wuxuu fahmay faidaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab inay tan horeyso uu sii daayay waxaa leenaha walaalayaal masaajidda inaanaan u camirin inaan u hargalno inaan ku camirno cibaado iyo nolol wanaagsan inaan ku camirno masaajiddu inay noqdaan meesha aan ka rarayno ka qaadayno warka wanaagsan ee suuqa iyo magaalada iyo xafiisyada aan geynayno ayna noqon meel laga soo qaado warka dibadda oo lagaga dhex sheekeeyo masaajidda dhexdooda maanta masaajidda maxaa lagu sameeyaa in badan telefoonay ku daawataa in badan wararkii idaacadaha sheegeen bay ku dhageystaan in badan xanuuniyo waxay la soo kordhay kaga sheekeeyaan in badan baadiyihii iyo isku xidhayntii iyo reeraha kaga sheekeeyaan taa looma baahno warka masaajidku waa inuu dibadda u baxa warka suuqa masjidka inuu soo galo maaha intaasaan kusoo koobayaa ilaahi ha nagu anfaca subxaanahu watacaala allahuma ijcalna min ahli lmasaajid wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu